magaalada gaalkacyo waxaa iminka khadka ku jira jaamac faarax waa aabbaha dhalay gabar yar oo 8 sano jirta islamarkaana arrin la xiriirta kufsi loo geystay sida uu sheegay jaamac faarax gabadhan 8 jirka kufsiga loo geystay shalay waxaa loo soo taagay maxkamadda darajada koowaad ee gaalkacyo nin ku eedeysan kiiskeeda jaamac sidee wax u dhaceen faahfaahin naga sii هذا هو kiiskaas u dhacay bisha hadda nabmatay oo bishii labaad ahayd 9keedii baa kiiskaas dhacay ma garan kiiskaas wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Taalacad barakacyaalka abu ka dhacay magaalada aan isku leeyahay 10 kilomitir buu u jiraa ma garan waa Taalacad kaamka la yiraahdo Taalacad kaamka la yiraahdo way ma garan haye abaara sidii ilaa 9ka wixii u dhaxeeyay baa kiiskaas dhacay ma garan haye ilmaha falka lagu filayay ilma saqiir oo 9 bilood bay jiraa ma garan waaga ninka ku fuliyayna waxa weeyaan nin magaaladan gaalkacyood ka lugeeyay oo baalka la yiraahdo magaciisa la yiraahdo Muqtaar Cabdi Kaafi Xirsi Axmed weeye ma garan waaga ninkaas gabadha afduub ku sameeyay guriga ay jiiftay isaga jiiftay waa afduub ku sameeyay mar afka kaga qabtay ma garan haye kadibna bacaad ku la tagay ma garan haye xilliga soo hawshiisa ka dhameystay markuu sii daayay iyadoo babaraysa hooyadeeda iyo carruurta ku soo dhaxdhacday haye habartii toos bay ku bixisay inantii yaray haye dhiigga ka arwaamay aragtay haye qaylaha ku subato oo kaamkii oo dhan baa soo kacay haye markaa kadibna raadkiisii baa la soo qaaday haye ninkii waxaa lagu qabtay kantaroolka ninka la yiraahdo Colmadow baa lagu qabtay ma garan haye ciidanka kantaroolka joogay la qabashadiisa ka qayb qaatay haye ehelada kaamka joogtay oo dhan ba ka qayb qaadatay haye xilligii waagu baryayna saldhigga la geeyay waaga saldhigga markii la geeyayna kiisaskii laga qoray uu qirtay haye xilligaa kadib baa waaran loo geeyay maxkamadda la geeyay maxkamadda goormaa la geeyay waxaa la geeyay gaal shiraha la geeyay waaga saacadaha gaal shiraha la geeyay bisha 10keedii 9kiiba waxay isbuurta dhacday maalinta dambe waa bisha 10keedii anoo turkiga joogaa laga soo waayay markaas haye dhacdada hadda ilmahayga ku dhacday baa la ii sheegay haye waana miro gaalkacyana miro waxaana mid 18 bishii labaad baan soo galay gaalkacyo soo galay haye in ka dambeysay anigu aan joogay oo aan maxkamadna tagin cid kale aan xiriir la sameeyna dhacdooyin fool xun oo ka tira badan arrintaas oo dil leh oo kufsi leh oo baalka la yiraahdo ilmo yar suuq oo la si walba loo sameeyay lagu dilay leh xaalado badan baa magaalada ka dhacay waaga adigu hadal dheer dhacday kiiskaas shilay oo bisha ahayd 3 ahayd baa la keenay maxkamadda la keenay ma garan waaga waxyaalaha tan hordhaca inaan ka sameeyana ma raba kiiskaas hadda maxkamadda ayuu yaallaa ma garan cabashada labaad waxaa lacag geeri igu marka koobaad 9 jir iyo 3 bilood ilma jira dhibaatada inta leeg in loo geysto horta marka koobaad geeri bay igu tahay ma garan haye marka labaadna waxaa geeri labaada oo baalka la yaada ilaa hadeer aan miyirkaygu taam ahayn ilmaha intaa la eg 40 jir nin ah 36 sano ay u qoran tahay oo qaba xanuunka HIV-ga inuu baalka la yaado u galmooday xanuunkaasna hadda ay xambaarsan tahay geeri labaad midaas ay waa ma garan xanuunka uu ninka kufsaday gabadhaada maxaad tiri xanuun noocayuu qabaa xanuunka AIDS-ka loo yaqaano HIV-ga loo yaqaano weeye xanuunka AIDS-ka loo yaqaano weeye ma garan yaa ku xaqiijiyay arrintaas waxa ii xaqiijiyay goorihii caafimaad oo ka qaadanayay daawada ka qaadanayay iyo cidii xogta la lahaa iyo baalka la yiraahdo xilliyadii hadda uu soo taxanaa kiiskiisu soo taxanaa ilaa xilligii baalka la yiraahdo reerkiisa say ku kala tageen ilaa daawada xilliga laga helay cudurka laga helay xog nin fara badan oo intaas soo ururiyay markii u dambeeyna wasaaradda caafimaadka gaalkacyo inuu cisbitaalkeeda ka qaadanayay daawada gaal sidahana loogu geeyay baa xogta buuxda ayaa ma garan shalay maxkamad ayaa la soo istaajiyay nin ku eedaysan inuu kufsi u geystay gabar 8 sano jir ah dib ay jidho sidaad sheegaysid waa dhacdo ugub ku ah Puntland bal ka waran ma la wadaagta kiiskan maxkamadda iyo caafimaad darrada aad sheegayso inuu qabo ninka waa ku eedaynaysa inuu kufsaday gabadha kiiskana waxa weeyaan maanta ay muddadiisu markay maanta ahaydna xaalado jira dartood iyo baalka la xogaan u baahanahay kiisas badan oo yaalla maanta dib baan u dhignay nagu yiraahdeen inta kadib
waxaan halkan baaq uga dirayaa wasaaradda caafimaadka mudug ama Puntland waxaan uga dirayaa dawladda Puntland waxaan uga dirayaa cid kasta oo xuquuqul aadamiga u dooda dhacdada nooca u dhacday in la waafajiyo sharciga islaamka in la waafajiyo baaqaasna naftayda iyo nafta saqiirkaba in lagu qanciyo sidaasaan ugu baaqaya waayahay gabadhii ma baaritaan ma ku samayseen maadaama aad ii sheegayso in nin xanuunsan uu kufsaday oo la nool xanuunka HIV-ga gabadha waxaa la yidhi 3 bilood kadib baa la baari karaa baa la yidhi 3 bilood kadib baa la baari karaa baa ilmahaasi maadaama ayan ahayn ilmo biyo leh oo hawo leh oo bahalka la yidhaahdo falta samayn kara maadaama ayan ahayn 3 bilood kadib ayaa la baari karaa baa na lagu yidhi ma garan waa markii u horreysay oo dhacdo noocana la maqlayo in qof xanuunsan uu kufsi u geysto ilmo yar oo aan qaan gaadin dad badan baa ku maqlaya hadalkaaga maqlaya maxaad ku tala bixin lahayd sideese yahay dareenkaagu bal nooga war walaana waxaan ku tala bixin lahaa masiibo cadiima oo aan uguba curad ahayn uguba waya xaaladda ka jidha kacayo waa arrin lala yaabo waa arrin aan dhaqanka Soomaalida ahayn waa arrin aan dhaqanka Islaamka ahayn waa arrin aan dhaqanka Puntland ahayn waxaan ku tala bixinayaa arrimahaas iyo wixii la midaba sharciga dawliga in la mariyo iyo kan Islaamka oo la isugu kaashanayo muddo intee leeg buu kala horreeyay kiiska gabadhaada loo geystay iyo kan caasho laga galay midna sagaalkii buu dhacay midna waxaa jeclahay xilliga lagu yiri waa dhacay inay ahayd ilaa 27 ilaa 28 meelahaas oo maanta ima qorno taariikhda iyo kalendaariga kuma hayo aad buu mahadsanyahay jaamac faarax waa aabbaha dhalay gabar yar oo 8 sano jir ah oo la sheegay in lagu kufsaday 9kii bishii lasoo dhaafay ee February magaalada Gaalkacyo si aad ugu xidhnaato taabo subscribe iyo kambananka magaalada Gaalkacyo waxaa iminka khadka ku jira jaamac faarax waa aabbaha dhalay gabar yar oo 8 sano jirta isla markaana arrin la xiriirta kufsi loo geystay sida uu sheegay jaamac faarax gabadhan 8 jirka ah kufsiga loo geystay shalay waxaa loo soo taagay maxkamadda darajada koowaad ee Gaalkacyo nin ku eedeysan kiiskeeda jaamac sidee wax u dhaceen faahfaahin naga sii adana waxaa kiiskaas u dhacay bisha hadda nabmatay oo bishii labaad ahayd 9keedii baa kiiskaas dhacay ma garan kiiskaas wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Taalacad barakacyaalka abuu ka dhacay magaalada aan isku leeyahay 10 kilomitir buu u jiraa ma garan waa Taalacad kaamka la yiraahdo Taalacad kaamka la yiraahdo way ma garan haye abaara 8 ilaa 9 wixii u dhaxeeyay baa kiiskaas dhacay ma garan haye ilmaha falka lagu filayay ilma saqiir oo 9 bisana iyo 3 bilood bay jiraa ma garan waaga ninka ku fuliyayna waxa weeyaan nin magaaladan Gaalkacyo ka lugeeyay oo baalka la yiraahdo magaciisa la yiraahdo Muqtaar Cabdikaafi Xirsi Axmed weeye ma garan waaga ninkaas gabadha afduub ku sameeyay guriga oo jiiftay isaga jiiftay waa afduub ku sameeyay mar afka kaga qabtay ma garan haye kadibna bacaad ku la tagay ma garan haye xilliga soo hawshiisa ka dhameystay markuu sii daayay iyadoo babaraysa hooyadeeda iyo carruurta ku soo dhaxdhacday haye abartii toos bay ku bixisay inantii yaray haye dhiigga ka arwaamay aragtay haye qaylaabku ku subato oo dhaqaamkii oo dhan baa soo kacay haye markaa kadibna raadkiisii baa la soo qaaday haye ninkii waxaa lagu qabtay kantaroolka ninka la yidhahdo Colmadow baa lagu qabtay ma garan haye ciidanka kantaroolka joogay baa qabashadiisa ka qayb qaatay haye ehelada kaamka joogtay oo dhan ba ka qayb qaadatay haye xilligii waagu baryayna saldhiggaa la geeyey waaga saldhigga markii la geeyeyna kiisaskii laba qol lagu qirtay haye xilligaa kadib baa waaran loo geeyey maxkamadda la geeyey maxkamadda goormaa la geeyey waxaa la geeyey gaal shiraha la geeyey waaga saacadaha gaal shiraha la geeyey oo bisha 10keedii 9kiiba waxay isbuurta dhacdeen maalinta dambe waa bisha 10keedii anoo jooga joogaa laga soo waayay markaas haye dhacdada hadda ilmahayga ku dhacday baa la ii sheegay haye waana miro Gaalkacyaana miro waxaana mid 18 bishii labaad baan soo galay Gaalkacyo soo galay haye in ka dambeysay anigu aan joogay oo aan maxkamadna tegin cid kale aan xiriir la sameeyna dhacdooyin fool xun oo ka tira badan arrintaas oo dil leh oo kufsi leh oo baalka la yiraahdo
ilmo yar saqiir oo si walba loo sameeyey lagu dilay leh xaalado badan baa magaalada ka dhacay waa gad anigu hadal dheer dhacday kiiskaas shalay oo bisha ahayd 3 ahayd baa la keenay maxkamadda la keenay ma garat waa gad waxyaalaha tan hordhaca inaan ka sameeyana ma raba kiiskaas hadda maxkamadda ayuu yaallaa ma garat cabashada labaad waxaa lacag geeri igu ah marka